Assalaamu calaykum asxaabta kusoo dhawaada channelkeena Baro English Academy. Maantayto waxaan idiin wadnaa topic ku saabsan opposite words, erayo iska soo horjeeda. Tusaale ahaan numberka koobaad waa boy, wiil. Waxaa ka soo horjeeda girl, gabar. Next, buy, soo iibsasho. Marka wax soo iibsanayso waxaa la dhahaa buy. Ereyga ka soo horjeeda buy-na waxa waaye sell. Marka wax iibinayso sell waa iibin. Careful, si taxadar leh. Careless, si taxadar la'aan ah. Expensive, qaali. Shayga markuu qaali yahay suuqa, sicirkiisu markuu aad u sareeyo waxaa la this thing is an expensive item. Shaygan waa shay aad u qaali ah. Waxaa ka soo horjeeda cheap, raqiis. Ereyga ku xiga waa cheerful, waa qofka markuu aad u faraxsan yahay waxaa la dhahaa cheerful. He's a cheerful boy, waa wiil aad u faraxsan. Waxaa ka soo horjeeda sad, murugo. Child, cunug. Qofka markuu yar yahay waxaa la dhahaa ilmaha ay yaryihiin waxaa la dhahaa badanaa waa child. Waxaa ka soo horjeeda adult, qaangaar. Qofka markuu qaangaar wuxuu noqonayaa adult. Ereyga ku xiga waxa waa chilly. Markii meesha ay aad u qabowdahay waxaa la dhahaa waa chilly, qabow. Warmna waa wax markay aad u diiran tahay meesha kale ama biyo kale markay diiran yihiin xoogaa kuleel ay ku jiraan waxaa la dhahaa waa warm, waa diiran. Clean, nadiif. Dirty, wasaq. Clever, arday aad u fiican oo dadaala oo wax kasta oo looga baahan yahay iskuulka la yimaada waxaa la dhahaa clever student, arday aad u wanaagsan oo dadaalo oo kaalintiisa ka soo baxa. Stupidna waxa waaye ereyga ka soo horjeeda clever oo ah qofka inta clever uu yahay opposite-keeda ah oo aan dadaalin oo aan wax fiican sameyn oo iska ciyaara stupid way. Crazy waxa la dhahaa qofka markuusan maskax fiyoobeyn baa la crazy. Ereyga ka soo horjeedana waa sane, qof maskax fiyow ayaa la dhahaa sane. Greed waa in wax la abuuro. Maxaa ka soo horjeeda destroy, waa in la burburiyo wixii la abuuray. Dark, meeshu markay mugdi tahay waxaa la dhahaa dark. Qolkan maanta aan ku jirno waa dark, waa mugdi. Bright waa iftiin. Dark sidoo kale waa mugdigii. Haddana waxaa ka soo horjeeda light, waa iftiin. Marka ereyga bright iyo light waa isku macno. Down iyo waxaa ka soo horjeeda sunset. Down waxaa la dhahaa qorraxda markay soo muuqato xilliga aroortii ay tahay oo kale. Waxaa la dhahaa the first appearance of light. Marka ugu horeysa ama ay soo muuqato qorraxda waxaa la dhahaa down ama waxaa la dhahaa sunrise. Waxaa ka soo horjeeda sunset, qorraxda markay dhacdo. Difficult, adag. Shayga markuu adag yahay waxaa la dhahaa difficult, waa shaygan waa shay adag. Easy, shaygu markuu fudud yahay waxaa la dhahaa shay easy ah waay. Downward and upward. Downward waa qaybta hoose. For example, shayga wuxuu yaalaa meel hoose waa downward. Shayga markuu kor yaalna waxaa la dhahaa upward, qayb kore. Dry, shay qalalan. Wet, shayguna markuu qoyan yahay waxaa la dhahaa wet. Shaygan waa shay qoyan. Dusk waxay la macno tahay sunrise, waa marka ugu horeysa fiidkii oo kale la dhahaa ama qorraxda markay soo baxdo oo kale. Fiidkii ayaa la dhahaa dusk. Down na waa xilliga badanaa markay subaxii aalisadii oo kale ay taal dhahaa down. Duskina waxaa la dhahaa markii maaragtay fiidkii. Down waxaa la dhahaa qorraxda markay soo baxdo aalisadii ay tahay la dhahaa. Waa mahadsantihiin.